السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad isku dayeysay inaad miisaan iska rido sanado badan dabcan waxna aysan kuu shaqaynoonin waxaan rabaa inaad arrinkan maanta dhageysato. marka ugu horeyso horto wax ka khaldan ma lahan, laazim ma tihid, discipline xumo kuma hayso. macnaha ugu weyn ma ahan in miisaan uu ka dhaco inaadan adigu u baahneen, bal waxaan ogahay inaad ugu baahan tahay inaad caafimaadkaaga ka shaqeyso adduunkan wax walba oo lagu siiyo haddii lagu soo hordhigo in ka badan. laakiin dhibaatada ugu weyn haysataa waxay tahay badankeen waxaan daba soconaa arrimo jirkeena bedelkii uu nala shaqeyn lahaa marka uu arko uu naga soo horjeesanayaba. maantana waxaan rabaa inaan kuu sharxo arrimahaas waxay yihiin. maanta taa u fiirsato saddexda shay ay dadku iskugu sheekeeyaan marka laga hadlayo miisaan in la iska rido waa cuntada iska yarey, discipline yeelo, exercise badan sameey. haddii ay intaas shaqayn weysana qofku naftiisa ku soo laabtaa asoo aamina dabcan inuusan waxba qaban karin, in go'aankiisa uu xun yahay, in dadka kaloo dhan ay ka hormareen laakiin asigu uu discipline xumo ay haysa darteeda uusan u dhaqaaqi karaynin. laakiin kadib markaa la shaqeeyo kumanaan qofood oo ay iskugula jiraan waalidiin, dad wada shaqaysto professional ah, hadday dhaqaatiir noqon lahayd iyo hadday nurses noqon lahayd, arrinkan hadda adiga aad ka fikiraysid wax aanan ahayn igaga soo baxay. dadka inta badan miisaanka la tacaala ama dhibaatada oo ku haysa mataqaana waa dadka inta badan bulshada ugu dadaalka badan, waa dadka shaqeeya, waa dadka ganacsada, waa dadka noloshooda kale marka aad fiiriso discipline xumadu aysan haysanin, dadka dhaqaatiirta ah, dadka nurseska ah, dadka inta badan yacni bulshada u taagan inay noloshooda wax ka bedelaan. waa inta badan dadku miisaanka culus koro, suuxii uyoobay kahaan, nolosha pressurekeeda way handle gareeyaan, maalinna shaqadooda kama baaqdaan. marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid okay coach, hadduusan discipline-ku dhibaato ka taagnayn intuu khaladkan ka jiraa marka waan isku bedeli weysanahay. example yaroo caanan ku siino, naagtan meeshan kaaga muuqata waxaa la Oprah Winfrey, waa taqaanaan talk show way leedahay, show weyn oo Mareykanka caanka leh leedahay. sanado ka hor waxaa la arkay ayadoo intuu miisaanka ka dhacay dhexdeeda yaraatay, dhar quruxo badan oo style ah maalin walba soo xiranayso. markaas dabcan qofka caanka waad ogtihiin adduunkoo dhan hal mar isla khayliye. waxaa la isweydiiyey waxay miisaanka iskaga riday, laakiin waxay soo bandhigtay in ay isticmaalaysid dietka nooca loo yaqaana liquidka. dabcan in ay waxyaabo la qasto oo la cabo ay isticmaalaysa aysan wax cuntaa cunaynin. laakiin waqti markuu ka soo wareegay haddana waxaa la arkay Oprah oo miisaankii shalay saarnaa mid ka badan uu saaran yahay. markaas dadku haddana afka wada qabsadaan, waxay dhaheen haddana maxaa khaldamay. araan mintina ku sheego shalay sidai ugu baahnayd inuu miisaanka kaga dhaco maanta waxba iskama bedelin, laakiin waxay miisaanka ku ridaysay wax aysan ku sii noolaan karaynin. hal su'aala ku weydiina, marka aad rabto inaad miisaankaaga degdeg u rito, wax la cabayana aad isticmaasho aad rabto, waxaa isweydiisaa waxaan maanta ku hor yaalo maalin caadi ah oo noloshaada ka mid ah, pressure badan uu ku saaran yahay, shaqo badan ay kuu taalo, stressna uu kugu furan yahay, cunto dhadhankeedana aad dareemaysid intaad soo qabato oo aad qasato ma cabi kartaa. haddii jawaabtaadu maya noqoto diet kuma noqonayo, because beri aad joojinaysaa, miisaanka hadda ku saara mid ka badanna wuu kusoo koraa. waa labe physiologically adiga jirkaaga baruurta ku jirto waxaad ku fikiraysaa inaad banaanka u soo saarto because waxaad ogtahay inay caafimaad tahay, laakiin jirkaagu opposite u fikiraa. jirkaagu baruurta gudihiisa ku jirto wuxuu u arkaa inay tahay tamar uu beri u baahanayo. mar walba oo aad marka arrinkaas u soo xadgudubto oo aad isku daydo inaad ka soo saarto baruurta banaanka, labadiinaba dagaala dhexdiina ka dhacayo 80% dagaalkaas hadduusan mid istiraatiiji ku dhisan ahayn jirkaa guulaysto. li'annahu jirku waxa ugu weynee maamulayo waa maskaxda. enerjigan gudaha ku jiro waxa kaa celinayo ee u maleeyo enerjigaas inuu beri jirka uu anfici doono waa maskaxdaada. maskaxdana haddii aad la dagaalanto ilaa goormaa la dagaalami kartaa. principleka ugu horeeya marka talada ugu horeysa ku siinayo waxba diet ha gelin, lifestyle dhiso, yacni nolol aad ku noolaan karto joogto ah dhiso. haddaad samayso fat loss ama miisaan kaa dhacayo oo sustainable ah, oo subaxiina aad quraacanayso, khadadaadii aad cunayso, cashadaadii aad cunayso, laakiin waxa aad cunaysa ay ku kontroolan yihiin, cuntadaada wax macno weyna ma samaynayso. haddii aad carnivore diet aad gasho oo aad hilib keliya cunto oo cuntooyinka kale aad ka go'do, iyo haddii aad keto diet samayso oo aad cuntada aad cunayso faatka u badiso, laakiin carbohydrate-kaaga 5% aad wax macno weyna ma samaynayso. haddaa rabto low carb diet gal, haddaa rabto canjeerada guriga laga kariyay iyo bariiska cun, laakiin iyagu xakameey. waxaa u baahan tahay wax sustainable ah oo aad maalin walba marka aad soo kacdo aadan u arkaynin caqabad ku hor taagan. mar haddii shaygu uu caqabad noqdo
maskaxdu dagaalkeeda meesha isku bilowdaa maanta khasbi kartaa beri khasbi kartaa beri daba khasbi kartaa laakiin ma shaqeynayso way joogsanaysaa arrinkaas marka ay joogsatana aamin meesha hadda joogtid meel ka xuna tagaysaa bal iska dhaafee mustaqbalka inaad miisaan iska rido yay caqabad ku noqonaysaa labo inaad go'aan leedahay meesha ka saar maxaan ka wadaa waxaa ogaataa mar haddii aad saad loo samaynaysid waxa ugu muhiimsan ee xoogga la saaro waa environmentiga aad ku nooshahay haddii environmentiga aad ku nooshahay ama meesha dadka bey'adda dadka kula nool ay khasan tahay haddii wadaadka xagga uu cunto khaldan ku cunaayo haddii caruurtaada xagga cunto khaldan ay ku cunayso haddii gabadhi xagga cunto khaldan ay ku cunayso adigana aad rabti inaad weyd loo samayso haddii hooyo iyo aabbo iyo familki iyo cunto kale oo caadi ay cunayaan yom minal ayaam cuntadaas adigoo ku dhacaysaa ma badbaadaysid haddii marka mas-uuliyadda gurigaaga adigu gacanta aad ku hayso talada ugu fiican aan ku siinayo waxay tahay lifestyleka gurigaaga oo dhan bedel maxaa ku bedelaysaa ha ku bedelin waalidan dadka markay miisaanka iska ridayaan ay sameeyaan oo dadka cuntadoo dhan laga jaree waxaad samaysaa waxyaabaha ugu muhiimsan guriga ka saar lianna caruurtaada inay sokor tiro badan cunaan adi macno weyn kuma samaynayso caruurtaada inay cabitaan markay ugu yartaa 40 qaando sonkora halkeeda galaas lagu soo shubo inay cabaan wax macno weyn kuma marka adiga iska fikiraysid si bulsho ah u fikir wadaadka ku qaba ka fikir caruurtaada ka fikir caafimaadkiina gebi ahaan ka fikira haddaa nin odaya tahayna xaaskaaga ka fikir caruurtaada ka fikir gurigoo dhan ka wada fikir bedelka guriga marka aad soo gashaan oo kaleete waxyaabo macmacaan la soo dhigayo kale fruit ha lagu bedelo khudaarta guriga ha loo soo badiyo cuntooyinkan kaleete wax macno weyn ma sameynayaan laakiin kariska ha laga bedelo adiga kaliya dhalinyaro olive oil guriga inaad soo dhigato ilmihii iyo reerkii iyo familkiina aad saliid caday ku beergoyso iyo aamin xitaa weight loss-ka ma ku macaanaan macno weyn ma ku sameynaa waxaan ogaataa mar haddii marxaladda aad ku jirto aad bedesho adoo dhan isbedelaysid gudaha wax ka socda isbedelayo blood sugar-kaaga stable noqonayo nolol waxaad galaysaa degan lacag badanna way ku soo garowaysaa ay aamin adeega hadda aad adeegata ka yaraad adeegada waxay aaminsan yihiin marka lifestyle-ka weight loss-ka loo gudbo in lacag badan la isticmaalo walaa ilaadim lacag badan ku soo garowayso waxa ugu muhiimsan aad ka faa'iideysan waxay tahay mar dambe inaad discipline-kaaga ku mashquusho ma noqonaysa caqabada ku hortaagan laano maxaa discipline guriga haduusan cabitaan macaan yaalin haddaysan sokor oolin wax macaan oo la cuno haduusan guriga oolin discipline-ka maxaa uga baahan tahay uma baahnid waa siddex mar walbo faadka aad guwaysid ama jirkaagu uu ridayo wuxuu u istaagaa u fiirsada ramadaanka kale waxa laga yaabaa 10 beri ugu horeeyay inuu miisaan badan ka dhacay laakiin waxaan 100% aaminsanahay haduusan istaraatiijigaaga saxneen 11 iyo 12 iyo 13 waxaa dareemay inuu miisaankaas istaagay inuu miisaanka ka istaagana inta badan waxaa keento jirkaaga wuxuu dareemaa in weerar lagu soo qaaday waa tii qaybta hore aan ku soo cadeeyay jirku faadku wuxuu u arkaa protection okay wuxuu isku difaaco u arkaa faadkan meeshan ku jiro aad argaysa calooshan iyo kiliyahan iyo aad adigu dagaalka kula jirto jirku wuxuu aaminsan yahay abaar aan adigu ogeena asiga u sabiran abaartaas hore waa faadkan inuu kugula dagaalamo laakiin abaar ma jirto adiga suuxi waxbaad cunaysaa qalbti waxbaad cunaysaa habeenkii waxbaad cunaysaa laakiin asigu ma ogo mar walba cuntada aad soo geliso uu kheyr isticmaalo kheyrta kuu soo harta meel buu dhigtaa wuxuu isleeyahay lacala markay gaajo timaado isku difaac adigana sidaad u socotid waxaad rabtaa wixii uu isku difaaci lahaa inaad kagala dagaalanto inaad burburiso intaad hub usoo qaata aad baabi'isidaad rabtaa maxaad ku diidaysaa marka labadiina inuu dagaal kharaar idin dhex maro horaan kugu soo sheegay dagaalkaasna hadduusan strategic noqonin mid laga fiirsado hadduusan noqonin asaga kaaga guuleysanayo bal iska dhaafee 2 kiilo markaad ka riddo 5 kiilo kuu keenaa qodobkan hal mid aan kusoo gabagabeynaa haddaa wax walba samayso hadduu mar jirkaaga under attack dareemo in weerar uu ku yimid uu dareemo xataa dietka ugu fiican haddaa cuntid miisaan makaa degaayo waxaa la rabaa jirka inuusan dareemin waxa aad samaynaysid 3 calaamadood marka oo keeni karta jirkaaga inuu difaac kaa galo yaan kuu tilmaamaa marka aad uga fiirso waa koowe hurdada kuugu yaraata hurdadu inconsistency noqota mararka qaar hurdada kuugu yaraata waxaa jirta inaad hurdadu marba waqti aad seexato caawa inaad 11 ka seexato habeen kaleeta aad 12 ka seexato habeen kaleeta aad 7 saac seexato 8 saac seexato 9 saac inconsistency de hurdada ka noqoto ama ay gaabato hurdadaada cortisolkaaga haayo noqona waa number 1
weerarka meeshuu kaaga imaanayo miisaankaaga inuu istaagana ay ka bilaabanayso. ramadaana hadda lagu jiraa, haddaad ku tala jirto 20 beriya soo haray inuu wax fiican uu kaa dhaco, hurdadaada ku dadaal. 2 exercise tira badan. waqtiga hadda aan ku jirno ramadaanka markaad u fiirsato waxaad arkaysaa waxba ma cunaysid maalintii oo dhan. habeenkii waxaad rabtaa marka nafti inaad cadaabto oo aad exercise ugu yaraan hal sax iyo bar oo cardio biro la qaado wax dhan iskugu jiraan aad qoorta u geliso. hal mid aad ku sheega dhigayso, recoveryga lagu sheego ama soo kabsashada jirka uu soo kabsado 2 shay xooga ugu weyn haysata. kow hurdada waaye, labadan waa cuntada aad cunaysid. cuntada aad cunaysid hadday jirka ka maqan tahay recoverygaagu haafa ka maqan. taasna waxay keenaysaa maantoo dhan ama wiigii oo dhan in murqahaagu ay soreness dareemaan, xanuun inay dareemaan, inay kabsan waayaan. dabcan haddaysan kabsaninna wax koriimo ah meeshaas ma imaanayso, wax koraya ma lahan, meeshaad taagantaha unba taagnaanaysaa. waana stress, waxaas ma ahan fat loss. inaad jirkaaga saas u gasho oo haween walba galaas 1 sac soconayo oo aad ogtahay biyaha inaad daqiiqad u cabeysid, nafti aad iska qaadaysid. mararka qaar armaa fadhiisataa maskaxda ay ku dhehayso firib waxyaabaha aad adag mararka qaar inaad samayso way wanaagsan tahay, laakiin dadku waxaysan fahmaynin jirkaagu mararka qaar in loo dhimriyuu rabaa. li'annahu maanta kaleeta hadda waqtigaan ku jirno oo aanan cidna waxba aysan cunaynin ma ka bixi karo almiitooyinka qaar aan gelino. 3 nervous systemkaaga oo stress tira badan dareemo waxay ka mid tahay waxyaabaha jirka inuu weerar kugu soo qaado ama uu kugu la dagaalamo keena. qofka markuu fat loss sameynayo, fat lossku waa form ama nooc minal waxaan dhihi karaa waa healing, waa caafimaad waaye, waa soo kabasho. jirkana ma soo kaban karo marka aad fight and flight mode aad ku dhex jirto, marka aad dagaal aad ku hayso, gaajana aad ku dilayso, exerciseada aad u badinayso, hurdadiina aad ka reebato. way adag tahay jirkaaga inuu wax iska bedelo, inuu soo kabto way adag tahay, ma samayn karaayo. haddii jirkaaga kula hadli lahaa wuxuu ku dhihi lahaa fadlan waxa aad nagu wado way nagu adag yihiin, mana ka bixi karno nootur. maadaama marka ramadaan lagu jiro, isku day habeenkii proteinada aad qaadanaysa at least protein fiican. marka protein ku dhahayan dada waxay ku wareereenba proteinka dhan waxay u yaqaanaan mid kala qaso. ma ahan inaad cunto fiican, cunto nadiif oo jirkaaga xajin karta, inaad aalamiitadii 45 daqiiqo maximum haddaa kor u qaadidna 1 hour aad ku soo koobto, laakiin ay noqoto aalamiito nasasho fiican ay u dhadhaxayso oo aanan noqonin mid aad jirkaaga ku cadaabayso. waa in jirkaaga uu safe dareemaa, waa inuu ammaan dareemaa jirkaaga, kadib aad wax qabsan kartaa, kadib aad wax bedeli karaysaa. waxaan kusoo gabagabeynaa fat losska ama inaad miisaan iska rido wallaahi ma ahan inaad u baahantahay inaad jirkaaga ciqaab uusan kaa mudnayn aad marsiiso. isku day inaad lifestyle-kaaga ka shaqayso, dietkana bal parking geliso waqti yar oo kooban, system dhiso, jirkaaga difaaca uu galayana inaad barato. isku day miisaankan asaasi tartiib iskaga dhacayo. hadduu videogan ku caawiyey ila joog insha Allah taala. videogan video ku xigo waxaan ku tusin doonaa cunooyinka aan cunno ee naga hor istaaga inaan fat loss sameyno ama inuu jirkeena wax baruur ah rido. walaalka ku sabee. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.